halkani waa magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal waxay ahayd sanadii 2016 bishii 17 markii ugu horeysay laga daafuro magaaladan xarunta shaqada dhalinyarada ee Boorame Job Center. xaruntaas oo tan iyo markii la hirgeliyay xirfado kala duwan ka barteen dhalinyaro kor u dhaafaysa 3,000 oo arday kuwaasoo bartay xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin electriga, video production-ka, xinaha, biyagelinta, samaynta macmacaanka, hagaajinta mobilada, dawaarka iyo soolarta. horta marka hore iimaan garanaysaa CV-ga loo qoro iyo cover letter-ka waxa ma garanayn software-ada marka yani si loogu shaqeynayo business ahaan oo ku tababaray taa ka faa'iideystay sidoo kale sidii step by step u socotay inanka Elias ayaan tababar baa wada bixinay oo isla CV-gii ay baray kamid ah arday baan dib u barnay taasina waxay great step iyo ahayd oo itustay inaan dad wax u bandhigi karo markii hore waxaan ahaatay arday maadi u dhigtay laakiin hadda waxaan ahaatay arday waxaan ka faa'iiday iyaga ahaan xirfad gacmeed oo xiskilis gooniyan yeeshay xirfadan aan bartay video production-ka aad bay noloshayda boqolkiiba boqol noloshayda aad bay wax uga bedelaysaa xirfadan waa tuun ku shaqeyn karo oo noloshayda iyo nolosha family-gaba aan ku kaafin karayo xagga population-ka aad baan isku baranay alxamdulillah marka hore waxaan ahaa qof iska bilaa camal oo suuqa iska jooga oo iska shaqo raadisa ka bacdi markii aan arkay xirfad ay soo bandhigtay Boorame Job Center markaas la xiriiray ka bacdi si fiican baa loo soo dhaweeyay koorsada aan baranay waxay ahayd mobile repairing iyo software sida software-ka loogu shubo mobilka isla markii aan dhameysanay 6 bilood ee koorsada waxna la geeyay haras shaqeyso oo markaan ka shaqo bilownay meeshii si fiican ayaa isku fahanay qofkii meesha iska lahaa ka bacdi markuu ka helay xirfadii wixii aan bartay saanu shaqeynayo uu shaqaaleysay markii Job Center nimaday wixii ugu weynaan ka faa'iido waxay ahayd macmacaanka barashadiisa oo ugu horeysa buskudka oo nooc walba leh horta marka horeysa markaan wixii sameeyo dalabka laga soo dalbadaa ka bacdi waxay ka soo dalbadaan aniga xaafadaha ciyaalada iskoolada tagaya hooyooyinka bay ka soo dalbada waan u sameeyaa xaafada iyaga soo doontaan waxa kale iga soo dalbada dhowr dukaan oo suuqa ah dhowr dukaan xaafada ah wax badan ay ka bedeshay xirfadan markaan bartay noloshayda gaar ahaan ku shaqeystaa lacag ka qaataa aniga xiisinaya xirfadan badan waan isku taxalluujiyay in markasta lacag ka faa'iido badan aan ka helo sida marka loo tolo qaybaha duwan dharka adan noqoto dharka haweenka kale suudka iyo kaadaniis oo kale dharka shaatiga mooto rag iyo kale runtii shaqada kaliya maanta isku haween karo inaan isleeyahay suuq waad ku helaysaa waad ku shaqaysan kartaa halkan waxaan ugu soo gabagabay koorsadii Job Management Planning-kii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallinkii sharafta iyo qiimaha iyo cishada iyo karaamada iga mudan Cabdullaahi Yuusuf si kale aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Job Center-ka oo runtii ardayda tababaro wanaagsan u furta oo bilaash ah sidoo kale xarunta Boorame Job Center waxay noqotay xarunta ugu weyn ee gobolka Awdal ee isku xidha shaqo raadiyaha iyo loo shaqeeyaha taasoo ay xaruntu soo qaban qaabisay kulamaad tiro badan isku soo wada duuduubo dadaalada xarunta Boorame Job Center kuma ekeeno kaliya shaqo abuurka dhalinyarada balse xaruntu waxay dadaal xoog leh u gashay sidii ay kaalin muuqata uga ciyaari lahayd joojinta iyo la dagaalanka aafada tahriibta dugsiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin Faati Sultan Aadan Isaaq iyo dugsiga Boodhanka ee magaalada Sheekh ayaa ahaa goobaha ay xaruntu ardayda ka wacyigelisay dhibaatada tahriibta waxaana taa bedelkeeda ay xaruntu xoog ka saartay inay dhalinyarada u qabtaan tartamo iyo barida xirfado shaqo ay kaga baaqsadaan aafada tahriibta